قلعة ميديا نيوز. قلعة ميديا نيوز. kulan wacan ku soo dhawaada daawadayaal warka galcad miidiya qodobadaad ku daawan doontaan waxaa ugu dooroon dowladda Soomaaliya oo wada qorshe ay ku fureyso qaar ka mid ah wadooyinka waaweyn ee caasimadda. Cumar Finish oo madaxda sare ee dalka u sheegay inuu joojiyo gobolka laga qaato shaqaale cusub. qeyro kulan xasaasi ah la qaatay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle. Shabaab oo xoolo u kala wareejiyay beelaha Abgaal iyo Xawaadle. shaqaale ka tirsan hay'adda Ikaawa oo laga ceyriyay garoonka magaalada Hargeysa. Iiraan oo sheegtay in muwaadiniin u dhashay dalkeeda laga soo daayay gacanta burcadbadeed Soomaali ah. Taliyaha ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan sareeya Guuto Xuseen oo sheegay in ciidii soo wararta 10 lama ilaa waana u dhigi doonaan. haddii aad ugu cusubtahay fadlan daawada subscribe ee channelkan si aad u hesho warar ku saabsan akhbaaraadka caalamka inta aad maqasheen iyo qodobo kale ku soo dhawaada daawadayaal. قلعة ميديا. قلعة ميديا نيوز. قلعة ميديا نيوز. قلعة ميديا نيوز. magaalada Muqdisho ayaa yeelan doonta 4 wado oo laga baxo lagana galo. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamed Finish iyo guddi u magacaabay ka shaqeynta furitaanka wadooyinka Muqdisho ayaa dejiyay qorshe lagu furi doono wadooyinka Muqdisho qaarkood. guddigan ayaa soo jeediyay in magaalada Muqdisho in sideeda ay u sii xirnaatay la amar dambe balse la furo 4 wado oo kaliya oo ay ka soo galaan gaadiidka iyo dadweynaha iyo goobaha hadda ka caagan gaadiidka oo dhan ee xaafadaha qaar. guddigan ayaa isku raacay in laga bilaabo isgoyska Miranaayo ilaa isbitaalka Digfeer laga furo 2 kontarool oo kaliya oo ay ka soo galaan gaadiidka u soo gudbaya Xamarweyne kilomitir 4 iyo goobaha kale ee aan hadda loo gudbi karin. sidoo kale hal wado loo furo gaadiidka ka yimaada dhinaca Afgooye ee ka soo gala Saybiyaano iyo hal wado oo laga sameyn doono dhinaca Madiina. dhammaan barahan kontaroolka ayaa waxa la geyn doonaa ciidamo boolis ah oo ka amar qaata gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Finish waxaana loo qori doonaa lacag ka dheeraad ah mishaarka ay qaataan siday ogaatay caasimadda online oo warkan qortay. gaari kasta waa soo gali doonaa balse wuxuu mari doonaa baaritaan dheer oo loo adeegsan doono qalab iyo ciidan xirfadeysan oo la siiyo mishaar ku filan ayuu yiri qof ka tirsan gobolka Banaadir oo la hadlay caasimadda online. soo gelida ama gaadiidka imaanaya kuma xirnaan doonaan aqoonsi dawlad iyo mid kalaba balse waxay mari doonaan baaritaan adag waxaana laga yaabaa in qorshaha sidan iska bedelo waayo weli go'aan lama gaarin ayuu yiri qof aan la hadalnay. dad badan ayaa ku taliyay in gabi ahaanba la furin wadooyinka magaalada Muqdisho maadaama ay yaraadeen weerarada Al-Shabaab iyo khatartii badneed waxaana soo baxaya talooyin ku saabsan sugidda amniga oo ku aadan in wadooyinka qaar la furo. qaar ka mid ah askarta xoogga dalka qaybtooda ku naafuuday xoreynta dalka kuna xareysan xirada ciidanka Fiyaame ee degmada Xamarjajab ee gobolka Banaadir oo iskugu soo baxay gudaha xirada ayaa waxay sheegeen in muddo 9 bil ah aysan helin wax mushaar iyo gunno ah. askartan ayaa tilmaamay inay xirada yimaadeen guddi ka shaqeynaya hanaanka tirakoobka ciidamada. qaar ka mid ahna ciidamada naafada ay marsiiyeen hanaanka iyagana loo sheegay in loo imaanayo waqti kale balse jawaab lagu soo celin waxaana ay madaxda dalka ugu sareysa sida madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre ka dalbadeen in ay helaan xaqooda maadaama ay dalka difaaciisa ay ku naafoobeen. waxaana ay sidoo kale sheegeen askartan in 9 bil ka hor ay helayeen xaqooda akoona lacagta ugu soo dhacday ay lahaayeen. bismillaahir rahmaanir rahiim. ana Xasan Maxamed Xasan oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed naafada xerada Fiyaame ku nool waxaan ka cabanayaa xaquuq la'aan ahays 9 bilood ah xaquuqda iga maqanta waxaana ku leeyahay dawladda Soomaaliyeed iyadaan u dhaawacmay iyadaan u dhintay iyadaan u shaqeynayay waana la dayacay 9 bilood wixii ka horeeyay waa qaadinay 9 bilood sanadkan soo u dhashan la'na systemkii dawladdu samaysay oo la yiri waxba lagu saxayaa waana la ku qalday xaq baana la ka galay eed baana la ka galay ra'iisul wasaaruhu afkiisa wuxuu ku yiri waxbaan saxayaa ma waxbuu saxay ra'iisul wasaaruhu ma waxbuu toosinay
system maanan gelin waxaan u geli weynay xerada waa yimaadeen waa idin soo naqaynayeen rag bareela oo guryaha jiifay saacado kooban ay joogeen jaarisna maysiin jaaris la'aanta darteed aan ku mari weynay systemki marka dawladda waxaan ka codsanaynaa inay systemkaasna marsiiso xaquuqdeena siiso bayrol wax la yiraahdo ayaa la yiri waa la maraya bayrolkaas waxeenni ayaan ku weyni inta bayrolkaasi uu shaqaynayay intii ka horeysa waxeenni waa qaadanayn taliyaha xoogga wuxuu nagu yiri musuqmaasuq baan ilaalinaynaa shaqsina loo kala mari mahayo dad lambar la'aana ayaa wuxoodii helay annaga oo waxeenni sax yihiin oo lambarkeenni uu saxan yahay oo ikoonkii leh oo bay lambarkii leh oo lambarkii xoogga leh asagoo lambarkeenni u dhammaystiran yahay ayaan mushaarkeenni la'aana waxaan ka codsanaynaa saraakiisha aan soo sheegay iyo madaxda dalka ugu sarreyda intaba waxaan ka codsanaynaa inay xuquuqdeennii waxba lama aha dawladda sidaan baan u soo luga go'nay sidaan baan u soo baaba'nay ay waxeenni si degdega ay nooga soo gaaraan maadaama aanan hoyo karin oo waxeenni ay naga maqan yihiin 9 bilood mushaar ma qaadanayo xuquuqdii dawladda aan ku lahaa balse waxa ay tadhaan sugahay horta wixii ay qodho aan lahaa in la gooyo oo naafa laga gooyo waa sharci darro Soomaalinimo maaha islaamnimo maaha muslimnimo maaha dhowr mar ayaa sidaan oo kale ciidamada naafada ah kana tirsan militariga Soomaaliya iyo kuwa jira jiida dagaalka waxay uga cawdeen mishaar la'aan iyo garaam la'aan soo wajahday maamulka gobolka Banaadir ayaa isku raacay joojinta qaadashada shaqaale cusub ee dawladda hoose ilaa amar dambe siday caasimada online u sheegay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda hoose ee gobolka Banaadir gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Finish ayaa u sheegay dhammaan gudoomiye ku-xigeenada gobolka Banaadir odayaasha dhaqanka xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha inuu joojiyay qaadashada shaqaale cusub oo ka mid noqda dawladda hoose ee gobolka Banaadir ilaa muddo dhowr bil ah Cumar Finish ayaa dalbaday in la siiyo fursad uu ku saxo nidaamka shaqaale qaadashada gobolka Banaadir oo u baahan dib u eegis iyo in la xoojiyo hubinta qof kasta taasna ay qaadan doonto muddo bilooyin ah sida ay noo sheegeen mas'uuliyiin ka tirsan xafiiska shaqada ee shaqaalaha ee gobolka Banaadir arrintan ayaa waxaa sababay weerarkii ka dhacay aqalka dawladda hoose ee gobolka Banaadir 24 bishii Juulaay ee sanadkan kaas oo lagu waayay haliyeeyo badan kadib markii ay fulisay qof ka tirsan mas'uuliyiinta gobolka Banaadir oo arga naafa ka ahayd ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa gudoomiyay shir looga hadlayay sidii al-shabaab looga saari lahaa deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolada Shabeellada Dhexe iyo Shabeellada Hoose ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa waxa uu shir gudoomiyay kulan looga hadlayay sidii al-shabaab looga saari lahaa deegaanada ay kaga sugan yihiin maamulada Hiirshabeelle iyo Koonfur Galbeed kulanka waxa goobjoog ka ahaa madaxweynayaasha maamulada Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigareen madaxweynaha Hiirshabeelle Maxamed Cabdi Waare taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya iyo wasiirro ka tirsan xukuumadda Soomaaliya inta uu socday kulankan waxaa looga hadlay sidii al-shabaab looga saari lahaa deegaanada ay ka joogaan maamulada Hiirshabeelle iyo Koonfur Galbeed iyo sida ugu fudud ee lagu gaarsiin karo adeegyada bulshada u baahan yihiin deegaanada dhawaan ciidamada xoogga dalka ay kala wareegeen al-shabaab ee ku yaala gobolka Shabeellada Hoose iyo meelo kamid ah gobolada dalka kulankan ayaa ku soo aaday iyadoo toddobaadkii tagay madaxweynaha maamulka Hiirshabeelle Maxamed Cabdi Waare uu jawhar ka sheegay in shabaabkii laga saaray deegaano kamid ah gobolka Shabeellada Hoose ay soo buuxdhaafiyeen wadada xiriirisa Muqdisho iyo caasimada maamulkaasi Jowhar isla toddobaadkii tagayna ay ku direen al-shabaab mas'uuliyiin ka tirsan Hiirshabeelle dawladda Iiraan ayaa sheegtay in la sii daayay muwaadiniin muddo 4 sano lagu haystay gudaha Soomaaliya war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda dalka Iiraan oo lagu qoray wakaaladda wararka IRNA ayaa lagu sheegay in koox burcadbadeed Soomaaliya ay sii daayeen 4 badmaax oo u dhashay dalkaas kuwaas oo 4 sano la soo dhaafay lagu haystay gudaha Soomaaliya gaar ahaan deegaanada maamulka Puntland afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Iiraan Cabbaas Musaafi ayaa u sheegay wakaaladda wararka IRNA in siideysmada badmaaxiintaas ay gacan ka geysteen mas'uuliyiin ka tirsan qaramada midoobay maamulka Puntland iyo dawladda Itoobiya mas'uuliyiinta dawladda Iiraan ma sheegin inay madax furasho bixiyeen iyo in kale saddexda badmaaxi la sheegay in la sii daayay waxay kamid ahaayeen 22 ruux oo saarnaa markab la qafaasho sanadkii 2015 sideed kamid ah shaqaalihii markabka saarnaa way geeriyoodeen iyagoo gacanta burcadbadeedka ku jira 5 kalena way baxsadeen weerarada burcadbadeedka ka geysatay biyaha Soomaaliya ayaa hoos u dhacay 5 sano la soo dhaafay
Somalilan ayaa garoonka Hargeysa ka ceyrisay shaqaalaha hay'adii dowladda federaalka ku wareejisay maamulka hawada. Maamulka Somalilan ayaa garoonka diyaaradaha magaalada Hargeysa ka ceyriyay shaqaalaha hay'adda qaramada midoobay ee KAWA ee halkaas ka howlgali jiray. Somalilan ayaa shaqaalahan u soo ceyrisay sabab la xiriira in dowladda federaalka Soomaaliya hay'adan ku wareejisay maamulka hawada. Shaqaalahan la soo ceyriyay ayaa si degdeg ah u gaaray magaalada Garowe ee caasimadda maamulka Puntland sida uu xaqiijiyay wasiirka duulista hawada iyo garoomada dowladda Puntland Xuseen Cismaan lagu turgabilay. Wasiirka ayaa shaaciyay in maamulka Somaliland oo shaqo joojin ku sameeyay dhammaan shaqaalihii hay'adan sidaas darteedna ay uga howlgaleen garoonka diyaaradaha Garowe. Waxa uu sheegay wasiirka in garoonka diyaaradaha Garowe laga shaqaaleysiiyay 9 ka mid ah shaqaalaha hay'adda KAWA oo 7 ka mid ah yihiin kuwii laga soo ceyriyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa. shaqaalaha KAWA ay maamusho inaga KAWA airportka baaso kaliya shaqaale ka joogeen oo xafiis leh avis oo qaybihiisa kala duwan aviation cordon ay maaragtay hoos yimaadaan shaqaalaha baaso ka joogay qayb ahaan partner bay nala ahaayeen oo shaqay inoo qabanay laakiin annagu mushaarsiintoodana shaqo kuma lahayn bedelkoodana shaqo kuma lahayn maadaama shaqaale si degdeg ah lagu keenay oo 2 boosaas ka yimaadeen 7 Hargeysa ka yimaadeen ku Hargeysa ka yimid 3 kamid ah reer Puntland 2 waa reer Muqdisho Soomaalidu qabayl iyo waxbay fiiriyaan halka waxaan muujinaysaa shaqaale Hargeysa joogay laftigiisa reer Muqdishona waa ku jireen reer Puntlandna waa ku jireen reer Somalilandna waa ku jireen marka shaqaale aviation kuna qabiil la male gobolana male 28 December 2017 KAWA ayaa si rasmi ah maamulka hawada Soomaaliya ugu wareejisay dowladda federaalka Soomaaliya. Hay'adan ayaa hawada Soomaaliya maamulaysa tan iyo burburkii dowladii uu hogaaminayay Allah u naxariistay Maxamed Siyaad Barre. Dowladda Soomaaliya ayaa ku guuleysatay inay maamulka hawada Soomaaliya ku celiso gudaha Soomaaliya waxayna taasi keentay khilaaf xoog leh oo hadda soo kala dhexgalay Somaliland iyo Soomaaliya. markaana daawadayaal warkii dibadda sargaal sare oo ka tirsan ciidamada dalka Iiraan ayaa sheegay in cid kasta oo dhulkooda dagaal ku soo qaada ay cashir lama ilaawaan u dhigi doonaan. Hadalka Iiraan ayaa ku soo beegmaya kadib markii Mareykanku shaaca ka qaaday in ciidamo caawiya Sacuudi Carabiya u soo diray Khaliijka. Aad u taxadar oo hubso inaad wax qalad ah sameyn ayuu yiri taliyaha guud ee ciidamada ilaalada kacaanka Iiraan. Iiraan waxay diidan tahay eedeymaha ay Mareykanka iyo Sacuudi Carabiya u soo jeediyeen ee ku saabsanaa inay ka dambeysay weeraradii lagu qaaday xarumaha saliidda ee dalka Sacuudiga. Mas'uul sare oo ka tirsan boqortooyada Sacuudiga waxa uu sheegay talaabo kasta oo lagama maarmaan ah in la qaadayo markii uu soo ilaado baaritaanka weerarkaasi la xiriira. Wasiirka arrimaha dibadda ee Sacuudi Carabiya faahfaahin inta dheer kama bixin talaabada uu sheegay in la qaadayo balse waxa uu sheegay baaritaanka marka la soo gabagabeeyo xogta baaritaanka la shaaci doono. Daawadayaal waa naga intaa warkii aad kala socoteen Galcad Media. Haddii aad nagu cusub tahay fadlan daawade subscribe channelkan. Galcad Media. Galcad Media News. Galcad Media News. Galcad Media News.